wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle iyo wafdiga hogaaminaya oo booqasho ku jooga dalka Turkiga ayaa kulamo kala duwan la yeeshay madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Turkiga waxaana kulamadaasi ku weelinaya wasiiru dowlaha safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Ciidiid iyo sidoo kale u qaybsamaha safaaradda Soomaaliya ee arrimaha tacliinta hidaha iyo dhaqanka Cabdicasiis Cabdiraxmaan wafdiga wasiiru dowlaha ayaa kulamo kala duwan la yeeshay wasiirka waxbarashada ee dowladda Turkiga madaxda hay'adda tacliinta sare ee dalkaasi Turkiga oo magaceeda loo soo gaabiyay YOG iyo mas'uuliyiinta hay'adda arrimaha diinta u qaabilsan dowladda Turkiga Cabdiraxmaan ayaa sheegay in guulo waaweyn uu ka gaaray kulamadii uu la yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan waxaana ugu warbixiyay wasiirka waxbarashada ee dalka Turkiga xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya siyaasadda iyo qorsheynta waxbarashada Soomaaliya dhaqangelinta heshiisyadii hore iyo sidii ardayda Soomaaliyeed looga faa'iideyn lahaa deeqaha waxbarasho ay ka helayaan dalka Turkiga kulan uu la yeeshay hay'adda tacliinta sare ee Turkiga ayuu sidoo kale waxa uu kaga hadlay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay go'aano miro dhal ah iyadoo xal laga gaaray culeysyo ay wajaheen ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi Turkiga sidoo kale wasiirka waxa uu xaliyay cabasho ay qabeen ardayda Soomaaliyeed ee ku aadan jaamacadaha dalkaasi runtii kulankeena waxa uu ahaa mid xoog lagu saarayay ardayda Soomaaliyeed gudoomiyaha hay'adda tacliinta sare ee Turkiga waxaan ka wada hadalnay sidii loo wada shaqeyn lahaa loona horumarin lahaa arrimaha tacliinta sare maadaama dalkeena ay ka jiraan jaamacado badan waxaan isla garanay in ardayda hadda ku sugan dalka Turkiga ee waxbarashadu ka istaagtay ee gaaraya ilaa iyo 50 arday in loo ogolaado inay dhigtaan jaamacadaha dalka Turkiga inta laga soo cadeynayo jaamacadaha ay ka baxeen waxaana arrintan loo yeelay Soomaaliya oo kaliya ayuu yiri wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle waxaa jira arday fara badan oo gaaraya ilaa iyo 50 arday oo ku sugan dalka Turkiga kuwaas oo ay ka istaagtay waxbarashada